marka aniga xasan intuu saxiix la Muuse saxiixo intuu baariyaal cun lahaa cali habasha wana xabashida ku abtirsaday habar xabasheed baan habar jeclaan xabashay dhashay dhaqankeedana waan garanaya xabashida wuxuu iga qaadaya ma jiradka ay awdal kida la oranay way u saxiixeen saylac bay u saxiixeen Muuse dagaalkii nin hawada ka xidhaya oo hay'adii iqaatadii ka xidhaya ya oo caawimadii dadka masaakiinta u cimaysay corona baa wuxuu lacagti corona naga xidhay dawladna la ka xidhay inaan dawladdu noqon wadadii uu isleeyay dadkaaga wada u furmaysa albaabada oo dhan lagu soo xidhay ana wax leeyahay ku hagaagsan ma aha Muuse inaan taageersanahay laakiin waxaan leeyahay uu ku hagaagsan inuu heshiis galaamo ictiraaf ku helo ama hadii la leeyahay wada kale hala maro Soomaad garan way dawladnimo aan ku dhiibo wax weeyaan xasan markuu ogol yahay baydhabo inay Itoobiya hayso oo amnigooda aan hayso oo ogol yahay meesha la yiraahdo Kismaayo inay hayso Itoobiya gacanta ku hayso inuu ognahay Itoobiyada halkan joogtay Itoobiyada halka tagaysa wax difference weeysa xasan wuxuu doonayaa doon ya marka wax la yiraahdo ruwaayada ninka meesha keenay maalinta uu yimaado isaaq buu dagaalkiisa bilaabay irka ragii wadaad kamid ah Soomaaliya waligay ma wadin wixii uu dibna in ciyaal baa wadi jireen ciyaal uu nagala dardaarmo waa tuubaabi Abdullaahi Yusuf hadaan xamar iman dawladda ma dhalateen 2017 suuqa Makka Mukarrama orod baa lagu mari jiray dawladnimada way jeedeen ragga doonay maanta xilalka ay aaminsanadada ama madaxtooyaasha waa raggii lahaa xabad bay iga fakatay xaafadaas loolama kicin waa fakatay madaaficda xaafada ku garaacay dawladnimo ayaa la keenay dambiga ugu weyn beeshayda isaaq baa iska leh waxa weeyaan sida waxaan ku leenahay in hawiye wax walba gacanta laga saaro oo aan ugu heelino oo dir dabada ka soo kaxayno aan mar walba daarood cadaawadaydu ku jeehaysnaato oo aanu dawladnimadii baabino ardaa gacanta u gelino oo taas sawirka maanta leh Xasan Sheekh Maxamuud joogo ya ay noqoto waa wax aad iyo aad bal waxaan ku sheegaa ma jeerteen hal safiir male hal wasiir male wasiirkiisa arrimaha dibadda waa taayinta ay joogtay oo dhalay agaasiba guud male wasiirku xigeen male hal safiir male wax saxiix dalka waxay ku leeyeen xeeraryaha guud Soomaali ma anfacaysa madaxtooyadii iyo dawladii oo dhan caasimadii dalka madaxweynihii wixii oo dhan amnigi hay'adii amniga oo dhan arrimihii gudaha wixii oo dhan safiiradii ya inay ku koobnaato arday yar Soomaali ma qabalaysa waxa weeyaan waa wax aan runtii Soomaali afixin maantana xeerkan wada wax weey isagoo intaas oo dhan Soomaali ka xishootay oo noqday ninkii ugu maamulka xumaa ninkii ugu tala xumaa waxaan ku sheegay hadii xataa igad oday dhaqameed looga baahdo odaygiisu qoray sanad wuxuu qoray ugaas Maxamed Cali ugaas ayuu igad odayaasha igad la shaqeynaya dhaqanka buu ka dhigay iyo midabtigiisa xawaadla Soomaali kale oo meesha joogta oo hab maamuus hadii uu isleeyahay cid wax ku qoray dhul baantu yiri safiir baan siinaya Juba oo afarta koona ka xiran Juba Suudan buu ku tuuray marka dawladnimadii waxay noqotay basket yar oo beed uu ninku sito waxna ku sheegay waxay ku dambeynayso xeerkan maanta la sixiyay wuxuu ku dambeynaya farmaajo 2 sanadood oo kororsaday uu jirsiyay baarlamaanka wixii ka dhacay waa looga horta xeerkan saas ku sameynaya waxa kale ku sheegay wuxuu ku dambeyn doonaa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa dawladii Cali Mahdi adeerkii madaxda ka ahaa madaxweynaha isu magacaabay wuxuu ka ahaa xogayaa ganacsigu ahaa wuxuu soo sameeyay lacag yar oo nac la yaado dastuurkan waxa sameynaya wuxuu ku dambeeyay lacagtii socon weyday ilaa waa lacag reer qulu leeyahay nacdii uu Xasan soo sameeyay socon weyday deedna kaaraan ku dambeysay meel ay ka baxday la garan laayahay horta dastuurkan nacdaas uu noqonaya wax soconayana maaha Soomaalina ma anfacayso raggii dhisay ee dawladahan ku soo tabcay meel nimankii bal cid ka iska day nimankii ma jeerteen dhaqaalaha iyo nafta iyo adduunka galiyay hooyada federaalka ah inay saxiix xuquuq ay dalka ku yeeshaan oo noqdo xeeraliyaha guud oo awood lahayn oo xaakim lahayn oo safiir lahayn oo waxba lahayn horta waa wax mis ragayga anaguna ka tagay sagaalka wasiir iyo madaxweyne ku xigeenka ya maanta halkayga muxuu soo uray waxaanu ka haynay halka kan wax la yiraahdo ra'iisul wasaare ku xigeen ra'iisul wasaare ku xigeenku wuxuu maamuli jiray kiisaska badda isaga maamuli jiray maadi gulad ba maamuliyay bay'adatan wasiirada loo sameeyana isaga maamuliyay wuxuu kale maamulayay la dagaalanka argagixisada wixii oo dhan
mid adeerku yahay mid waa islaakeen mid abgaala keen mid waa buudana keen ya horta dawladnimada xasan uu doonayaana waxa weeye dawlad madaxweynuhuna uu yahay reerkiisa caasimaduna reerkiisa tahay hay'adaha dawladuna reerkiisa tahay umada kalena ay marti ka tahay cid yeelaysa ma jirto annaguna hadaanu taa ku shaqayn jiray ya ama xurguf daarood noo dhaxaysaan ku shaqayn jiray Soomaaliya oo dhan baan ku baabiinay markasta oo la yimaado cid u hiilinaysa kursiga codka siinaysa annagana maanta dagaalka ugu xun beeshayadu ku haya deegaankaygu ku haya dad la qarin karo ma nahay xasan horta dagaal siyaasadeed iyo beeshiisa baa noo bilaabmay caasimada waxa shir baan ku qaban doonaa sanadkan ama aakhirkiisa baan ka shaqeynaynaa inaanu ku qabanno oo dawladda Soomaaliland ka shaqeynayso oo cid waliba ka shaqeynayso oo aanu garowe ku qabanayno balana waxaan ku qaadnay inaan caasimada garowe geeyno Soomaaliland halka ugu yeerno su'aasha qura la isweydiinaya waxa weeye war dawladda noocaas oo kala oo caasimada iyo madaxweynaha iyo amniga iyo hay'adaha iyo khaarijiga iyo safiiradii ninka caynka u shaqeynaya shandadiisa boosadiisa ku shigta ee dabiciisu yahay hada farmaajo ilaahay ma ku dhaarshay bal arso hel baloor uu saxeexay oo hantidii qaranka maxamed siyaad barreeyntuu galay ee hadda leeyna ka cafinayay dhulkan iyo daarahan kan iyo wasaaradahan iyo waxaan ahay maxaa la cafiyay wixii uu balowdhay uu qaatay hadda waa ka isku haystaan isaga habar gidir baa isku haysta xaruntii damdamiska markaasuu leeyahay war hawlaa guud qaata meel qaranka uu bixinayaa kale ya marka horta dawladnimada maanta taala dastuurkaasina nacdii uu soo daabacay xasan sheekh ee uu odayga ka ahaa ee kaaraan ku dambeysay noqon doonta dawladnimaduna saasay noqon doonta ninka ka shaqeeyay arinta badda hadda dhacday toddoba abgaal buu magacaabay يا دكتور بادي ويو حسن شيخ نيري هذا إساق وأرجحيس إيو شباب ككدو إيو ضد نوع أخلاق ذي دقن كودي وحيين وشيء خلي شعور صبلي وحوي حشود ما يالو وربطوا أنا جاي نوت هلاي من رئيس الوزراء هيك حين كيجي ما يوسير هذي ما يحبنا هيك برلمان أنا هذا أنا كلام عديدي مركي نوع عن نقاطه أنا وقف قال كشغين منه من تشوفينه Soomaalina ugu yeeri meeyno xaleenay Soomaaliye haday sidaas inay anfacdo ku soo xasan waxa leeyahay war lacagtina aad ku socotaay soco baarlamaanku waa ku asixinaya digil iyo midifle iyo dirna waxa weeyaan dibidaabyada bay ka shaqeynayaan ku socon leeyahay waxaad ka keentay inantaad wasiirka ku naqaato raggan isqabaa beedahan iyo meeshay joogaan iyo wasiir hay'adaha dhan ku koobay bal kuwaas ra'iisul wasaare ku xigeen baa leeyahay haybadii laga qaado shaqadii laga qaaday ismaad garan madaxweyne ku xigeenkuna wuxuu noqonayaa nin kaaraan marti ku abu noqon doono waxa weeyaan xasan wuxuu diidayaa ka baxsanaya taandhadii buu ka cabsanaya taandhadii mar dambe inaan lagu dooranayn buu ogayaa wuxuu doonayaa arrin booba sidii berigii doorashooyinkii hore ee la yidhi waqooyi oo dhan annaga iyo dhulbahanti iyo ursangeli iyo gadabiirsi waxyaga oo dhan waxaa naga xoog badatay meel la yidhaahdo walaweyn وأنت موقف جوجين يا تي كل دون يا عضلية بلقوا عدي يولوين وحسب جيج بصاب محمد حوينا أنا هو الله يدورته وسايس كي تشوفه حضرنا حير كانوا وحسينا يا شخص إنه قدام به وكبلاب ما يسمى أنت بارلمان كأصحيه ومدحوينيه هاي يلا بدي سيارة تضبط وحيسي وقرشاش فتى يا عائلة دي سي ودولة دكور وحيسي عند مرتك إنه كل يسوي سويسا يا أنا وحلا أنا قررت الدنيا ما طلع أنا أنت هذا كلام دقائق بقى waxay taagan tahay ma tashan kartaan deegaankiina uma tashan kartaan taleeydu weydiin maayo Puntland markuu wax walba ka qaaday oo meel qura saxiix ku yeelan weydii madaxweynaheedana waan eriyay ayuu xasan taagay Soomaalina sida oday ugu noqon maayo isugu keeni maayo Soomaad garan arrinka meesha yaala waxa weey waxaan war Soomaali ma haday aniga waxaan ka hadlayaa beentahay ama waxaan sheegayaa ha ka doodeeno ha fure أنا واحد دولة أنت هنو بوساسة جروا وجهنا دولة لماذا؟ أنا رأينا عاصمة قرى كهلا واحد كلا ضد كوقيفش أي قبلت أنا برينا سو مرة نما يمنا يا ديتها سد على لفتها يا هديت هذا الشيء يسد على لفتها سو برينا هذا مرة كلا نما يمنا ودارت بعض أنا بعشق قاتيو عاصمة دي بالله خير وهذا شيء كتير دارت نوع ما بس ما يكرم هذا واحد غيبنا يو دقن كام بالله شلي بيشوف فرماشة شفته أنا يا كتلين وقوي كتلين يو ماذا كلا كتلين يسوي وهذا كيسوي وزير أن مغنين أنا قم أنا لهاي عد مغني سمعت ميشوف أنا وحوي شبكة يقوم أنت هوي حلقة قبطه يا هذا وحوي حسب وحلي أنا يبيني كالي حلي على العربي وكالي أنا بدي يبيني كالي أنا دكتي هو دن دلك الصحيحي مدار كي هذا عد تركي قاطي دكتي مقدسة تركي قاطي يا أنا قايل له ده حبشان علنا يا حبشان